ifafaalaha iyo qiyaasta laga dhiibto berri waxay dhaamin doonto maanta ayaa mararka qaar u muuqda hirar joogle iyo iftiin ha yeeshee dhalangediga wakhtiga oo aanu qofna si saxa u saadaalin karin ayaa geesta kale u roga wixii la naawilayay macaanaad filaysay ayaa noqday qadhaadh aanaad liqi karin barwaaqo iyo ilays muuqday ayaanad marmarka qaar gaadhi karin gundhiga sheekadeennan waxaynu diiradda ku saaraynaa mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland oo daayar u badan filashada laga qabay soo bixitaankoodiina ay ahayd mid ku dhisan riyo iyo muraayad laga dhex arkayay horumar wadatashi horu socod iyo in rarka la dhigay halkii loo socday walow ay fadhiyeen wax ku dhow sanad iyo 6 bilood haddana muddadaasi waxa laga guntay dhacdooyin qadhaadh oo dadka qaar ay sheegeen in laga saaro tirsiga taariikhda la xardho ee golaha wakiilada Somaliland fadhiyada qaarkood waxa ka dhacay dagaalo qas fawdo foori iyo waxyaabo aan laga filin xildhibaano qaran oo heer baarlamaana waxay door weyn ku yeesheen khilaafka hareeyay mucaaradka iyo xukuumadda waxay hormuud ka noqdeen abaabulka mudaharaado khasaare nafeed sababay oo ka dhacay dalka walow ay midigta saareen kitaabka le xilka saarina aanu yarayn haddana sanad iyo bar kadib weli waxay u kala safan yihiin mucaarad iyo muxaafid iyagoo meel iska dhigay wixii laga filayay waxay noqdeen kuwa aqalkii xasanada ee baarlamaanka ka dhigay madal xasaradeed oo ay ka soo bilowdaan khilaafyada waaweyn ee dalka hareeyay qaarkood waxay noqdeen kuwa ku baratama social media iyo aniga hal arko waxa loo diiwaangeliyay xildhibaano Facebook dhexdeed habeen iyo maalin isaga jawaabaya taariikhaha qormay waqti kooban iyo dhacdooyinkan dhamaadka lahayn ayaa tibaaxaya xildhibaanada hadda jooga waxay qabteen inay ka badan tahay hagardaamada ay dadka iyo dalka u geysteen badi waxay noqdeen daruur curatay oo aan la dheefsan walow deegaanadii ay ka soo baxeen il dheeraad ay ku hayaan haddana dadyowga siyaasadda Somaliland gorfeeya waxay tibaaxeen inaanay marnaba dhicin wixii laga filayay daayar waxbartay dhammaantood waxay noqdeen kuwa uu ka tambatay milanka iyo hirtanka siyaasadeed ee u dhaxeeya mucaaradka iyo xukuumadda waxay noqdeen kuwo la kala safan laba dhinac waxay noqdeen kuwo hilmaamay wixii loo doortay waxay noqdeen kuwo meel iska dhigay dhaartii iyo kitaabkii ay midigta saareen welina waxay ku jiraan buuqa iyo sawaxanka hareeyay bulshada qaarkood waxa laga dhaxlaa hadallo qadhaadh oo aan marnaba u wanaagsanayn in bulshada dhagahooda ay ku soo dhacdo iska daajiya horumarineed oo ay bulshada u jiidaan sanad iyo 6 bilood kadib waxay ku guuldaraysteen inay guundaha isgeliyaan iyagoo meel iska dhigay wixii ay isku hayeen ee mucaarad iyo muxaafid welina waxay u kala fadhiyaan kuwo kala shakisan oo aan marnaba isugu imanin ajende iyo qorshe horumarineed